بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaa noo bilaabanaya taxane socon doona oo aan magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marba magac ama sida ay isku leeyihiin aan u sharxi doono, si kooban aan u faahfaahin doono, anagoo isku dayayna inta Ilaahay noo sahlay aqoontanada iyo wixii aan isku daynay inaan fahamno inaan si sahlan oo fudud Ilaahay idinkugu soo gudbino. Magacyada Ilaahay waxaanu ka bilaabin doonaa magaca Allah. culimada aadka u darsay magacyada Ilaahay kala aragti bay ka qabaan. qaar Allah waxay ku daraan magacyada kale oo waxay dhahaan Allahu Rahmaan, Allahu Rahiim, Allahu Malik, Allahu Qudus, si gaar ah uma sharxaan. culimada qaarkoodna waxay u qaataan inuu yahay magac u gaar ah oo ay sidiisay u sharxaan, wayna ka bilaabaan marka ay daraasada sameynayaan. run ahaantii midda saxsan oo raajixa ah dadka culimada ka jawaabi kara, laakiin aniga qalbigaygu wuxuu ku degay inaan ereyga Allah, kelmadan Allah, si gaar ah u sharaxno, si gaar ah u fasirno, si gaarana uga hadalno, ayadana aan ka bilowno, maadaama magacyada Ilaahay aan sharaxaad soo socda ka sameyn doono mid walba kan inuu noqdo inaan u qaadano Allah inaan sharaxaad kooban oo aan isleenahay waxay u noqon kartaa bilow magacyada Ilaahay inaan ka bilowno. ereyga Allah culimadu waxay yiraahdeen wuxuu ka koobmaa laa ilaaha illa Allah. laa ilaaha waxay culimadu ku fasireen inaad ka go'do wax allaale iyo wax Ilaahay ka soo haray, inaad ka go'do, qalbigaaga ka go'o, maskaxdaada ka go'do. illa Allahuna inaad Ilaahay u go'do oo Ilaahay xiriirkiisa u go'do, Ilaahay inaad qirtay aad u go'do. ereyga Allah ama kelmadda Allah waxay culimadu ku sheegeen inay leedahay waxyaabo u gaar ah oo aad iyo aad cajab u leh oo aad iyo aadna u yaab leh. waxaa ka mid ah bay yiraahdeen wuxuu ka kooban yahay alif ama hamzo, alif iyo laba laam iyo ha. waa erey 4 xaraf ka kooban. culimadu waxay yiraahdeen haddii alifka koowaad meesha laga saaro, macnihii sidiisii buu ahaanayaa. waa kan Ilaahay quraankiisa ku dhahay lillaahi maa fi samaawaati wa maa fi al-ardi. waxay kaloo ku sheegeen haddii alifka lagu xijiyo laamka koowaad oo laga taga ayadana oo la soo reebo lahu, waxay noqonaysaa isla macnihii bay ahaynaysaa huwa al-ghaniyu lahu maa fi samaawaati wal ard. waxay kaloo culimadu sheegeen kelmadda xarafka u dambeeyo huwa ama huwa haddii asaga laftigiisa la soo reebana macnihii inuu sidiisii wali u jiraayo huwa Allahu alladhi laa ilaaha illaa huwa. sida darteed magacan waa magac ama kelmadanu waa kelmad aad iyo aad u leh qiimo xoog leh. ibn qayyim al-jawziyya marka uu magaca Allah ama kelmadda Allah uu sharxayo wuxuu raaciyaa sharaxaad aad iyo aad u xeel dheer oo uu ku sheego ilaa dhowr iyo 10 u gaar ah ereyga Allah ama kelmadda Allah oo sharaxaad fiican ka bixiyo. qaarkood baan soo qaadanaynaa. waxaa ka mid ah inuu ku sheego magacyada Ilaahay oo dhan waxaa loo nisbeeyaa oo lagu xiriiriyaa Allah. وكان الله سبحانه وتعالى قرآن كيس كله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وحكروا أيضا الشيء أو آدي آدو قيم بدل أريجا الله لبدا سحرف أبوه الرئيس ألف كأي لام كأ هدي حرف النداء لقدره أو لو يرى الله سبحانه وتعالى أدو يرنيس ودورنيس يا الله سيدو ذي بوجوجيان سببتها أساسيات كمجاعي كمديين. laakiin magacyada kale oo Ilaahay markay aad ku darto magaca yeerista xarfu nidaaga aad ku darto alifka iyo laamka meesha uu ka baxayaa wuxuu noqonayaa ya Raxmaan, ya Rahiim, ya Khaaliq iyo sidii la mid ah. laakiin ya Allah marka leedahay sidii bay u joogayaan. wuxuu kaloo sheekhu sheegayaa magaca Allah inay tahay waxa ku soo noqnoqonaya wardiga qofka sida joogtada amaanilaha uu akhrisanayo. subhanallah, alhamdulillah, لا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني وردي كستو داخلين يسمع الله ملبو وجرايا. وحكر سوريا إن قرآن كإله سبحانه وتعالى إلى صدني يصدح سورة ضد مجع الله وبسي وصق له أما أقبل لوذي إلى لا بكون وحكب ظننا مجع الله وقرآن كجرو. ابن قيم وحيابها وشيء وحكم هيد ما لنت قيامها وضدك لك الحكمه oo jannada ahlu jannada ay jannada galaan waxa joogsanaya taacooyinkii dadku ay dunida ku soo sameyn jireen. cibaaday soo sameyn jireen, way soo soomi jireen, way soo salaadi jireen.
marka sheekhu wuxuu leeyahay cibaadooyinkii dunida lagu soo sameyn jiray oo dhan way joogsanayaan loomana baahna markaan in la sameeyo marka laga reebo xuska ilaahay way joogaysaa xataa jannadii la sii joogaysaa wuxuu kaloo sheegay kelmadda allah qofka markuu laa ilaaha ila allah afkiisa ka dhaho inuu dhiiggiisu nabadgelayo cirdigiisu nabadgelayo ayna ka mid tahay waxyaabaha jannada gelinaya ilaahay subxaanahu watacaala asagaa marar badan isku sifeeyey oo yidhi innii ana allahu alcasiizu alxakiim wuxuu kaloo ilaahay subxaanahu watacaala sheegay magaca allah cid la baxda inaysan jirin hal taclamu lahu samiya cid sami ku ah oo magacaan la baxda inaysan jirin xataa culammada taariikhda waxay sheegaan dad fara badanoo ilaahyo samaystay kelmadan allah inaysan la bixin oo aysan u isticmaalin ilaahayna subxaanahu watacaala qur-aankiisa aad buu ugu sharxay qul huwa allahu axad allahu samad oo tilmaamaha ilaahay subxaanahu watacaala marka la sheegayo waxay ka bilaabataa in allah la dhaho kabacdina tilmaantii la raaciyo ilaahay subxaanahu watacaala qofka bini aadamka ah marka aad noloshiisa kasoo bilowdo ilaahay markuu uumayey ilaa maalintii laga soo qaadayay ballanta ahayd inuu ilaahay aqbalo waxay kasoo bilaabataa allah yacni alastu birabbikum markii qur-aanka la soo dejiyey oo qofkii qur-aanka loo keenay oo islaamnimadii loo keenayna waxaa looga bilaabay faclam annahu laa ilaaha ila allah shanta tiiroo islaamka waxay ka bilaabataa inaad ilaahay subxaanahu watacaala qirto lixda tiiroo iimaanka waxay ka bilaabataa an tu'mina billaah salaada markaad tukanayso waxay ka bilaabataa allahu akbar salaada markaad khatimayso waxay ku dhammaataa assalaamu calaykum waraxmatullah marka meel walba oo noloshaada ka mida ama cibaadadaada ka mida allah way ku dhex jirtaa oo waa tan faatixada aad ka bilaabayso alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin bismi illaahi raxmaani raxiim aad ka bilaabayso wixii u horreeyey ee ilaahay uu soo dejiyey oo nabi maxamed lagu soo dejiyey xarafkii u horreeyey oo lagu soo dejiyey wuxuu ahaa iqra bismi rabbika aladii khalaq oo waxa la akhrinaya waxay ahayd ilaahay magaciisa in la baraayo markii risaalada loo dhiibayey ee marxalatu nubuwa intuu ka gudbay uu u gudbaayay marxaladii risaaladana waxaa lagu yidhi yaa ayuha almudathir qum fa andir warabbaka fakabir nebiyadii nebi maxamed ka horreeyey markay dadka u yeerayaan waxay ugu yeeri jireen waxay ahayd quuluu laa ilaaha ila allahu tuflixuu sidaa darteed nebi nuux markii uu doontii sameeyey ee uu doontii hagaajiyey ee uu dadkii yiri kora ereygu u isticmaalay waxay ahayd irkabuu fiiha bismi illaah nebi sulaymaan warqadii uu u dirayay malikatu saba wuxuu ku qoray innahu min sulaymaana wa innahu bismi illaahi araxmaani araxiim saa darteed qofka noloshiisao dhan bay ku jirtaa markaa seexanayso wardiga akhrinayso bismika allaahuma wadactu janbii markaa cuntada cunaysid waxaa laga bilaabaa bismi illaah markaad dhammaysid waxaad leedahay alxamdu lilah xaaskaaga markaa u tegaysid waxaad ka bilaabaysaa allahuma janibna shaytaana wajanib shaytaana mima rasaqtana ilmo markay kuu dhashaan waxaa lagu dhahayaa baaraka allaahu laka qabriga markaa gasho su-aasha koowaada lagu weydiinayo waa maa rabbuka man rabbuka maa rabbuka ilaahaaga sheeg oo inaad allah dhahdo aad ku jawaabto mu'miniintu marka ay jannada galaan oo ay farxadda jannada dhammaystaan waxa ugu dambeeya oo helayaan waa inay ilaahay arkaan sidaa darteed allah waa noloshaada bilowgeeda waana noloshaada dhammaadkeeda waxaa jira xadiis nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka soo arooray oo soonka ka hadlaya oo ah cibaadooyinka oo dhan markuu xadiiska sheegay wuxuu oranayaa ila sawm fa innahu lii wa ana ajzi bih sheekh shacraawi tafsiir gooniya buu saarayaa kelmadda ila sawm wuxuu oranayaa dadku ilaahyada ay samaysteen ee baadilka ah kulligood ma jiro ilaah ay u soomaan way jiraa ilaahay u sujuudaan way jiraa ilaah ay leeyihiin danbuu noo qabanayaa laakiin ma jirto ilaah baatil ah oo la leeyahay waa loo soomaa saa darteed xadiiska asagu wuxuu ku fasirayaa inuu ilaahayga xaqa lagu caabudo uu yahay ilaaha keliya ee loo soomo qofka muslimka marka noloshiisa waxaa la rabaa inay mar walba allah ay ku jirto alimaam fakhru raazi wuxuu oranayaa mar walba aniga maca allaahi wa billaahi wa min allaahi wa lilaahi wa ila allaahi oo loola jeedo qofka muslimka noloshiisa waxaa la rabaa inay ilaahay ku bilaabato ilaahay ku dhammaato dartiis uu sameeyo dartii uu isaga daayo noloshaada oo dhanna hadday ilaah ku wada jirto waxaad helaysaa adigana ilaahay inuu ku hago oo wadada saxda ahayd uu kugu toosiyo wallahu ta'ala